barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timbaro ayaa saaka kormeer ballaaran ugu kuurgelayay xaaladda iyo sida ay u shaqeeyaan xafiisyada wasaaradaha kala duwan ee gobolka Sanaag ku soo gaalabixiyay badiba wasaaradaha ku yaala magaalada Ceerigaabo iyagoona xilligaasi qaar ka mid ah xafiisyada wasaaradaha gobolku xidhnaayeen waxaana barasaabka kormeerkiisan ku weelinayay taliyaha qaybta booliiska gobolka Sanaag Cabdirasaaq Maxamed Faarax kormeerkaasi kadibna waxa uu barasaabku ka hadlay waxyaabihii uu ku soo arkay wasaaradahaasi isagoona digniin u diray mas'uuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaradahaasi ka shaqeeya saaka waxaanu shaqadeedii u joojinay inaanu soo indhaynno xafiisyadan dawladda runtii way jireen rag badan oo howlgar oo xafiiskoodii shaqadii sidii loogu taglay u socotay iyo qaar qufulinba waanu ku tagnay isu duwayaasha shaqaaluhu ma shaqeynayaan haddaan isu dugu goobjoog ahayn meesha joogin xafiisyada qaar waxay ugu saynaan karaaniyadii iyo adeegaad ugu tagaysa waa dhibaatooyin gobolka haysta isu duwihii shaqaysan waayaa dee risaalayaashana keeno ilaanu shaqadan kari maayo taasaa ka wanaagsan waayo wuxuu qaadanaya waa xaaraan waxaanu uga digaynaa isu duwayaasha 8 subaxnimo inta ka horeysa in xafiiskiisa laga helo ninkii laga waayo Soomaalidu hadda waa calaaxaliyana la jeediyay reebel baan ahayo waxaasina kala saari mayso waxaanu leenahay hay'adaha dawladdu haddana iyaga laftoodu coordination lahayn oo wada shaqeynaa shaqa socon mayso waayo maalin hore waxaanu ka bixinay war revenue-ga taxka la qaadayo hay'adaha dawladdu maxkamadda arjaa loo qortaa anaga xafiiskaygan ka soo bilow arjaa loo soo qortaa haddaanu tigirkii yaraa lahayn stamkii haddaanu lahayn yaan la qabanin leenoogu taakeli maayo waxaanu ugu celinayaa iyadoo qoraalan marorna ugu gudbiyay xafiiska laga helo inuu waajibkiisa gudan waayay haseex xidho cidii joogta haseex xidhato shaqay noo balana cidii shaqada laga waayo xilid naga dhaxay ma jiraan Maxamed Axmed Caalin Timbaro barasaabka gobolka Sanaag waxa uu sidoo kale ka hadlay arrinta Korneyl Jamaal Baaxad oo ahaa sarkaal hore uga goostay ciidanka qaranka ee gobolka Sanaag kaasi oo habeennimadii xalay warbaahinta qaar la hadlay isagoona barasaabku sheegay inaanay soo qaban kari waayin Korneylkaasi balse wali xukuumaddu ay dhowrayso xalay waxaan arkay wareysanayeen halkan isla soo galay annagu haddaan xukuumadana afar gaaro tiknika ku filan waan soo qaban karaa wax weyn lama aha laakiin waxaanu diidaynaa in qof wax inaga noqdo annagoo taa ilaalinaydan kuna hadda si yar xoqdaan dee dhibaatadeeda leedahay kaga hadhi mayno cidii waxaa samaysayna xeeraanta inuu gudbeyna annagu waan aqaanaa sharciga saxaafadda hala soo xiriyo qafqaftiidin kula shaqeyn maayo xafiiskaasaan idinka iskatay nabadgelyo cidii wax yeelaysa shaqadana waanu ka joojinaynaa ilaa inta kiiska Soomaaliya ku cadaanayo ama waxnu ku yeelinaa hawsha halkaasaan ka galeynaa geesta kale taliyaha qaybta booliiska gobolka Sanaag Cabdirasaaq Maxamed Faarax oo barasaabka kormeerkiisaasi ku weelinayay ayaa ka digay gaadiidka aan haysan sumadda iyo cashuurta Soomaaliland ee soo gala gobolka Sanaag runtii kormeerkaasi wuxuu noogu soo buday indhayn si wanaagsan shaqaalaha sidoo u shaqeynayo attendance-gooda xafiisyadu soo shaqeynayaan qalabkooda nidaamkooda kaloo kormeer ku soo sameynay si gaar ah wasaaradda maaliyadda waaxaheeda kala gadisan dhowrka waaxooda kasta kooban tahay customkii cashuurihii beriga dhinacyo badan saddexdeeda waaxoodba howlaha ugu muhiimsan ee aanu daba joognay kolley wasaaradda ku daba joognay iyo booliska waxaa ka laanta ilaalada cashuuraha gaadiidka sharci la'aanta ku joogay waajibkii laga soo saaray sida uu fulay laanta ilaalada cashuuru sida uu qabatay cashuurtooda maaliyaddu sida u fulisay dhammaystiran hawshaasina meel wanaagsan bay maraysaa haddana waxaanu ku celinaynaa wadayaasha hantiilayaasha wasaaradda maaliyadda laanta ilaalada cashuuraha iyo booliska dhammaantii inaan lagu wadan karin magaalada Ceerigaabo gaari aan lahayn astaantii dawliga ahayd oo bleedkii Soomaaliland aan lahayn inaanu ku dhex soconayn laguna dhex wadanayn cid ku gowargaar bixin kartaana aanay jirin Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceerigaabo.